iyadoo magaalada Muqdisho uu ka socdo shir ay leeyihiin golaha wadatashiga qaranka isla markaana lagu saxayo qaladaadkii ka dhacay doorashooyinka dalka ayaa haddana waxaa jira baaqiyo ka soo baxaya siyaasiyiin dalbanaya in la soco wixii hore loo indhasaabay sharcigana loo dhigay qoraal uu soo saaray mid ka mid ah saxiixayaasha 135 oday ee dhaqameed ee soo xulay ergooyinka soo dooranayay xildhibaanada ayaa waxa uu soo jeediyay in la saxo qaladaadkii la galay doorashada golaha shacabka boqor maxamed jaamac suldaan cumar oo ku sugan Muqdisho ayaa waxa uu soo jeediyay isagoo fariintiisa u diray madasha wadatashiga qaranka midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka dib u sixid kuraas uu sheegay in la boobay nuqul ka mid ah war-saxaafadeedka uu soo saaray oo warbaahinta ay baahisay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu laabto kuraasta gobolada waqooyi ee Muqdisho lagu doortay sida kursigii uu ku soo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuled Qadar oo kowdii bishii November ee sanadkii la soo dhaafay loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oday dhaqameedka cabashada muujiyay ee boqor maxamed jaamac suldaan cumar ayaa soo gudbiyay in la sameeyo sax ahaanshiyaha odayaasha dhaqanka 135 saxiixe lana hubiyo kadibna doorashadu noqoto mid daahfuran madasha wadatashiga qaran ayaa saddexdii cisho ee la soo dhaafay waxa ay la kulmeen saamilayda siyaasadda dalka iyagoo dhageysanayay aragtidooda si loo soco qaladaadkii dhacay intii doorashadu ay socotay isla markaana doorasho waqtiyeysan muddadana la soo gabagabeynayay la shaaciyo ashtakada ay qabaan odayaasha dhaqanka beelaha qaar ee kuraastooda la boobay ayaa la sugayaa go'aanka shirka tendhada afisyooni ka socda iyo sida uu u damiyo dabka siyaasadeed ee laga dhaxshiday